waa muhiim inaadan iibsanin kombiyuutar baterigiisa levelkan uu marayo waayo mar walba kama dawoodi kartid jaajar. Marka si aad u ogaato kombiyuutarkaaga levelka bateriga uu marayo ina keen. ugu horreyn marka waxaad u baahan tahay inaad soo furato web browserka ama Chrome-ka adeegso ama any browser adeegso. kadib marka waxaad ku qoraysaa HW Monitor ayaad ku qoraysaa, kadibna linkigani labaad ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato kadib waxaad la soo degaysaa softwarekani HW Monitor ayaad la soo degaysaa inkastoo la iibiyo. marka waxaan leenahay qaybtaas ayaan ku dhufanaynaa. kadib marka qaybtan hoose ayaan ugu soo degdegaynaa. kadib marka waxaad ku dhufanaysaa halkan ku qoran tahay set up English ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato kadib marka waxaad leedahay download now ayaad leedahay. isla markii softwareka maadaama software qaadkiisa uu yaryahay uu yahay, isla markii uu kuu soo degayaa kadibna waad open garaynaysaa. markaad open garayso isla markii wuxuu ku leeyahay ku shubo, kadib waxaa leenahay next kadibna waxaa leenahay next kadibna next install. markaad intaasba aad marto kadibna kombiyuutarkaaga ayaad hadeertaan ka dhex raadinaysaa. sidaad u jeedid markaan furno qaybtan iyo starting menuga waxaan ka arkaynaa softwareka hadeertaan aan ku shubanay oo ah HW Monitor. kadib markaad furto isla markii softwareka xoogaa yar analyze yar ayuu sameynayaa. kadib markaa informationada kombiyuutarka ayuu noo soo bandhigi doonaa. anaga marka meesha aan kaga baahannahay waxay tahay meeshan ay ku qoran tahay wear level ayaan kaga baahannahay. marka waxaana muhiim ah inaad meeshani aad ka fiiriso. meeshan waa levelska. marka meeshan wear levelka ayaad ka fiirinaysaa. haddii 20% uu ka koreeyo kombiyuutarkaasi baterigiisa ma wanaagsana. laakiin anaga hadda sidaad u jeedid waa 34%. waayo aniga muddo fara badan ayaan laptopkani soo adeegsanayay. marka haddii 50% uu kasii koreeyana kombiyuutarkaas baterigiisa waa bedel toos ah. laakiin 20% haddii uu ka koreeyo kombiyuutarkaasi xoogaa yar kooban ayuu ku haanayaa bateriga jaajarkiisa. marka intaan kooban ayaan jeclaystay inaan maanta muuqaalkan kooban idinkula wadaago. haddii aad videogan ka faa'iiday fadlan laagaree lana wadaagin asxaabtaada muuqaalkan si ayagana uga yara faa'iidaystaan. haddii aad nagu cusub tahayna na soo follow garee. intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idinkaaga tegi doonaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waa inoo muuqaal kale. guuleysta. maca asalaama.